shahaadooyin ay bixinaysa shirkadda Google ayadoo kaashanaysa shirkadda Coursera kuwaasoo aad ku baran doonto aqoon badan oo ku saabsan teknolojiyadda. Haddii ay noqon lahayd data analyticska, cyber security-ga iyo IT support-ka. Muuqaalka inta aan guda galin waxaan ka codsanayaa videogan in like noo saarto, sidoo kalena haddii channelkeena aad ku jirin inaan kusoo biirto si aad wax badan uga faa'iidaysato. Marka soo dhawaada aan guda galno muuqaalkeena. Shahaadada koowaad ee aan doonayo inaan idin la wadaago waxaa la yiraahdaa Google Project Management Professional Certificate. Certificate-kan ama diblomadan waxaa ku baran doontaa project management-ga. So project management-ga wuxuu ka mid yahay xirfadaha ugu waaweyn ee aad baran karto si aad ugu shaqeysato. So course-kan wuxuu ka kooban yahay 6 qaybood ama diblomadan waxay ka kooban tahay 6 course. So course-ka koowaad oo ah Foundations of Project Management, course-ka labaad oo ah Project Initiation, course-ka saddexaad oo Project Planning, Project Execution, Agile Project Management, iyo kan ugu dambeeya oo ah Applying Project Management in Real World. So course-ka wuxuu noqon doonaa course ama barnaamij lagu diri doono inaad sameysid project oo real life. Marka course aad iyo aad u wanaagsan ama diploma aad iyo aad u wanaagsan weeye, waxaana iska kaashanaya Google iyo Coursera. So dabcan diblomadan lacag baa laga doonayaa inaad ku barato, laakiin laba option baa haysataa inaad isticmaasho financial aid-ka. So financial aid-ka waxaa weeye adeeg ay bixiso Coursera. So hadda diblomadan oo kale available way financial aid-ka waxayna ku ogolaanaysaa in aad dalbato in lagu caawiyo oo aad lacag aadan haysanin. Tusaale form baa buuxinaysaa, waxaad oran doontaa waxaan doonayaa in la caawiyo oo course-kan lacag ma haysto oo si free aan ku dhigto. Taas option way. Haddii kale aad doonaysid waxaad samayn kartaa course by course inaad furto, kadibna marka aad xabad aad audit ugu sameyso. So audit wax kale ma aha waxa weeye in course-ka aad free ku dhigato, laakiin waxyaabo badan baa jira hadhow kaan usqaami doono sida certificate-kii lagu siiyo hadhow. Marka taana waa samayn kartaa aqoonta sida aad ku qaadato, laakiin certificate-ka marka aad weydo hadhow. laakiin haddii audit-ka aad sameyso waxaad awood u leedahay hadhow koorsooyinkaas oo dhan markaa wada dhigato inaad dib dambe lacagta ka bixiso marka lagu ogolaado. Marka course-kan project management-ga waa course aad iyo aad u wanaagsan oo qofkii doonaya inuu barto project management-ga uu ka qayb qaadan karaa. Sidoo kale course-kan waxaa ka qayb qaadatay in ka badan 1.4 milyan oo qof. Marka waa dad aad iyo aad u badan, waana course ee caddeyn ku siinaysa in dad badan ay ka qayb qaateen, kaasoo kor u qaadaysa ratingkiisa iyo qiimeyntiisa. Wuxuu haystaa 4.8 star. sidoo kalena waxaa ku baran kartaa 6 bilood ma isbuucin waxaa laga doonayaa 10 saacadood inaad waqti geliso. Marka course-ka aad doonaysid linkigiisa waxaad ka heli doontaan video description-ka xagga hoose. iska soo diiwaan geli. wixii su'aalaha qabtana comment nagu soo qor. haddaad doonaysid inaan muuqaal ka soo sameeyo qaabka financial aid-ka loo dalbado, video kale ka soo sameyn doonaa. shahaadada labaad ee aan doonayo inaan idin la wadaago waxaa la yiraahdaa Google Data Analytics Professional Certificate. So shahaadadan diblomada waxaa bixinaysa isla Google, waxaana ka qayb qaadatay in ka badan 2 milyan oo arday. Marka waad dareemi kartaa waa course aad iyo aad loo danaynayo. waxaana ku baran kartaa 6 bilood, isbuucin waxaa laga doonayaa 10 saacadood oo waqti inaad geliso. course-ka wuxuu ka kooban yahay 8 diblomadan dhexe ka kooban tahay 8 course oo soo dhexgalaya. sidoo kale diblomadan ayadana waxay leedahay financial aid. sababta u soo qaatay koorsooyin diblomooyinkan waxaa weeye inaan marka hore soo qiimeeyay inay leeyihiin financial aid-ka. So because diblomooyinka qaar baa financial aid lahayn, marka qofkii aan lacag haysan wuu dalban karaa financial aid-ka si uu free ugu dhigto. isagana wuxuu ka kooban yahay 8 qaybood. waad soo eegi doontaan linkiga xagga hoose aan soo dhigi doonaa description-ka. marka wuxuu ka kooban yahay foundations-kii, ask questions-kii to make that driven course la dhaho, prepare data for exploration course-ka la dhaho, process data from dirty to clean. marka waad soo eegi doontaan si muuqaalku noogu dheeraanin waan ka gudbi doonaa. marka diblomadan waa dibloma aad iyo aad u qiimo badan, wax badan ay kuu soo kordhinaysaa haddaad doonaysid inaad data analytics ka barato. diblomada saddexaad ee aan doonayo inaan idin la wadaago ee Google bixinayso waxaa la yiraahdaa Google Cyber Security Professional Certificate. marka qof alaale iyo qofka doonaya inuu barto cyber security-ga iyo internet-ka sida security-giisa loo ilaaliyo wuu baran karayaa. sidaan la socono cyber security-ga wuxuu ka mid yahay xirfadaha sida aadka loo raadiyo oo dimaankiisa uu badan yahay. marka 8 qaybood buu ka kooban yahay isagana. 8 course baa kusii dhex jira diblomadan, waxaana ku baran doontaa muddo 6 bilood ah. isbuucin waxaa laga doonayaa 7 saacadood waqti inaad geliso. marka haddaad doonaysid linkiga description-ka uu yaala soo check garay. sidoo kale financial aid-na uu leeyahay kan haddii aadan lacag haysanin
waxaad ka dalban kartaa Coursera inay si free ay kuu siiso oo aad ku barato. Marka soo tijaabiya isagana 4.8 way ratingkiisa course aad wanaagsan in ka badan 400,000 qofna way ka qayb qaadatay. Dibloomada afraad ee bixinaysa shirkadda Google iyo Coursera ayadana waxaa la yiraahdaa Google Digital Marketing E-commerce Professional Certificate. waxaana ku baran doontaa digital marketingka iyo e-commerce-ka. Diblomadan ayadana waxay ka kooban tahay 8 course waxaana lagu baranayaa muddo 6 bilood ah. isbuucina waxaa laga doonayaa inaad geliso 10 saacadood. Diblomadan sidoo kale ayadana waxay leedahay financial aid waa dalban kartaa. 8 course lagu baranayo waa kuwan waxaad ka sii eegan kartaa linkiga description-keena yaala. soo jeegaray kadibna waxaad eegtaa in aad ka qayb qaadan karto oo ay kugu fiicantaa. marka ayadana waa diblomadeed wanaagsan sidaan la socon digital marketing wuxuu ka mid yahay xirfadaha sida aadka loo daneeyo iminka. linkiga raac soo eeg haddii uu ku qanacdo soo tijaabi kadibna iska diiwaan geli. Diblomada shanaad aan kusoo gabagabeyn doono waxaa la yiraahdaa Google IT Support. diblomadan waxaa weeye diblomo loogu talagalay IT professionals dadka doonaya inay noqdaan ay rabaan inay ka shaqeeyaan xafiisyada. marka waxaa loogu talagalay qof kasta oo doonaya inuu digital literacy kor u qaado oo doonaya inuu wax ka fahmo IT-ga in general uu baran karayaa. qasab maaha inaad tahay qof technology si gaar ah u baranaya. waa course loogu talagalay general dadka guud ahaan inay dhigtaan. waxaan ku baran doontaa 6 bilood isbuucin waxaa lagaga doonaya 10 saacadood inaad geliso. koorsooyinka lagu baran doono waxaa ka mid ah diblomadan technical support fundamentals inaad fahamto networking-ka computerka sida u shaqeeyo, operating system-ka sida u shaqeeyo oo computerka sida loo isticmaalo, system administration-ka iyo tan ugu dambayso IT security-ga. marka sida arkaysan waa course general ah oo dadka berberan ugu sameynaya IT-ga inay fahmaan. sidaan la soconan IT wuxuu ka mid yahay xirfadaha la doonayo qofka inuu yaqaano si uu hadduu yahay dhaqtar, hadduu yahay accounting qof barta, hadduu yahay qof businessman ah, qof kasta waxaa doonaya inuu computerka wax ka yaqaano. marka course-kan wuxuu ku siinayaa faham guud oo ku saabsan operating system sida u shaqeeyo, computer network sida internetka waxa loo hagaajisto, security sida kor loogu qaado, antivirus-ka waxyaabahaas uu ku baraya general. waa certificate-kan kusoo gabagabeyn doona video-gan. marka haddii muuqaalkan aad ka hesho waxaan kaa codsanaa like inaan noo saarto si dad badan u gaaro. aad baa idin salaamaya. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.